waxaan ka yaabay dadkeena markaan u fiirsado waxaan isirahdaa malaa dooqba male dadku dooqba male waxaad arkaysaa qof lagu leeyahay oo maad guursatid oo maxaa cidlada ku dhigay maxaa kale kaa dhigay guurku waa mid horta dee waa calaf iyo nasiib taata ka horeysaana waxa weeye dooq yaa dooqii inaad dadka kala doordoorato oo horaa loo yidhi nin walbaaba tuu calmadaa ama qof walbaaba qofkuu calmadaa wow luul iyo dheemane dee qof kasta miyaad iska rabtaa dadkaniba dad qof kasta iska rabaa soomaalida waxeedu waa uniform waa in laysu wada eekaadaa waa in isku wax la cunaa wax la sameeyaa isku la wada qabaa la wada haysta ya wax walba waa competition sheeko waxaa igu soo baxday gabadh ruushkan muslimiinta ah wadankan regionkan Chechnya u dhalatay oo buuraha dhaadheer ayay kortay markay weyday jacaylkeedii guri aabaheed dhisay 1932gii oo village buur saarnayd oo laga kala guuray ayay keligeed ku nooshahay beachi keligeed ayay ku nooshahay iyadoo hadeer cad ah oo cimri maraysaa waatan waxay halkaa usoo baxday markay weyday ninkii ay isjeclaayeen ee ay ku ballameen inay isguursadaan oo nolosha isla qaybsadaan dhinac walba waa laga maro waxaa la yidhi cidladani kuuma wanaagsanay ha tegin haddaan waaye bay tiri qofkii aan adduunka ugu jeclaa waalidkeedna horey u dhinteen bartaa meelaan ahayn joogi maayo cid kaleba indhahaygu inay qabtaan dooni maayo toddobaadkiiba marbay magaalada u degtaayoo xoogaa u jirta oo ilaa saacad usii socotaa ilaa iyadoo hadeer cad ah halkaasay waxay soo qaadataa xaabana agagaarkaasay kasoo gurataa ay stoofka gashato stoof baa ku yaala guriga 1932gii la dhisay dadkaasaa lala tartami karaa 1932gii waa abeed dhisay stoof baa ugu dhex yaala dee aan electri ku shaqaynayn electric laakiinse ay xaabo ku gurato meelahaasay xaabo kasoo urursataa waxay u baahan tahay magaaladay ka doonataa boggeeda iyo beerkeedu waa isku dhegay quraan yaroo buug yaroo quraanahoo kitaab dee daldalaacay ahoo ayay iska haysataa halkeedaasay iskaga akhrisataa habeenkii xataa marmar bay saqda dhexe banaanka u baxdaayo magaalada meesha yaray degan tahay dhakadeeda intay u baxdo ay halka ugu sarreysa fadhiisataa laydhadhka magaalada halkaa ka bidhaansataa markaad sidaa u aragto waxaad arkaysaa ad soranaysaa waa saad laakiin haddana saad ma aha quruxda hareeraheeda taalla iyo iyada peacefulnesska nabadgelyada iyo naxariista ka muuqata just because waxaad aragtaa inaanay isdirqiin inaanay nafteeda ku qasbin waxaanay dooneyn inay nolosha ka dhigatay in my own terms sida anigu aan doonayo ayaan u noolaanayaa innaga ma laynaga helayaa qof sidaa sameey because adaygaa maba nihinba dacaayadaynaanba u dulqaadan karin
يا والجود عايدين يا وايد ده choice ملهيت وتصدق لي سنتها وحقف كستعب سماية وين أدونا سمايسا هداد مركات راه هذول وكدوين هيدتك كلا وحي سمايان دوني ما إنا سمايو قفك سوا والين هي قفك سوا دولي وانا عسب القرنية مركا واحد دتك كلا سمايان how ugly is it فول حما بدنا إنا دتك كديتد إنا دتك كدوانين يا وفول حما وي مين هين qofka bini aadankaah inuu go'aan leeyahay inuu kalsooni leeyahay in uu nolosha isagu dooran karo sida uu doonayo inuu u noolaado mar haddii aanay dee ahayn wax ka baxsan ilaahay subxaanahu wa tacaala orderkiisa iyo dee maaragtay wixii uu inaga xarimay in qofku uu aqbalo sida aan doonayo haddaan waayo yeeli maayo sida aan ka fursan waayo necessarily kuma khasbani inaan dadka kale koobi gareeyo dookhayga u khasbi maayo u xukumi maayo waayo dadka kaleba way sameeyaan adiguna sameyn bartaa siday ugu noolayd oo isaga happyska ahayd halkeedaas content qofkaan waayay haddaan doonaya haddaan waayay halkaasaan noloshayda ku dhamaysanaya cid kaleba dooni maayo inaan waqtigayga iyo noloshayda aan la qaato qof kastaaba ma samayn karo waa kani adayg iyo kalsooni iyo haybad ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyo anigu waxaan arkay markaan gabadha sheekadeeda arkay waxaan Soomaaliyeed would never do it and waayo waxa weeye way jiraan dee Soomaali ku gaboobay iyagoon dib u guursan laakiin inta badan waxaa lagu oranayaa dee lamaba weydiin dee dooqooda inuu ahaaba waayo waaba lagu qoslaya haddii ay choice ahayd iyaga waxaa lagu oranayaa automatically weliba gabadh Soomaaliyeed haddaad tahay dooq ma lihid waa lagu nacay oo kalaa lagu oranaya waa lagu nacay anaaba laygu yidhaahdaa waar annaga adduunka yaa baragna yaa waayo maxaa ku dhigay dee waa inaad wix allaale iyo wixii kula hadlaa waa inaad iska qaadataa waxaynu nahay ummad desperada oo aan dooq lahayn oo doonid lahayn oo aad muddo dareen inaynaan lahayn aynu iska qaadanayno xalbo iska qaadanayna dooq calas noloshu ma aha inaad qaadato wax walban kuu qalmin aad iska liqdo waxaan dooqaaga u qalmin ha isku dirqeen waa waxa marmarka qaarkood waxaan isdhahdaa guurkeennii ka dhigay bilaa micnaha waayo dad isiqaanaba maaha dad qalbigoodu isku xidhan yahayba maaha dad jacaylku daacad ka yahay maaha dad ka baqaya qofka noloshaydaan kaadidaydaan usoo cabay miyaan ciyaartaa doonaya inaan ku lumiyo waa iisi kamiisigo qofaad ciyaar ku heshay oo awalba aan dooqaaga ahayn dee hadeerna big deal maaha haddaad ka dhaqaaqdid dooq calas waan ka yaabay alla bilaa micnaysanaa dooqeen waa ummad wada waa uniform macaa dooqii uniform baa laga dhigay hebelba waa samee heblaayaba waa samee allahuma najeyna qofka fahmi kari laa qofkaan doonayay haddaan waayo qof kasta iskaga dhici maayo because mayhi qof kastaaba heli karo aniguna qof kasta ma rabo anna mayhi qof kastaaba heli karo I'm not raqiis like that ha noqon qof kastaaba heli karo ha noqon qof kastaaba heli karo indhaha qalbiga ka eeg ma fogo indhaha qalbiga
كيك مفوقو وحالي يا رقبو